Salaamu Allaahi calaykum asxaabi isku soo noqosho wanaagsan halka aad videogan ka daawanaysaan waa Dr. Xaashi Network. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago videoga labaad oo ku saabsan jilba xanuunka. Maxaa keenay jilba xanuunka? Marka videogii hore qaybtiina aan ila socon oo aan channelka ku xirnayn waxaan uga soo hadlay jilba xanuunka ay keento rheumatismada. Waa kan halkana ka daawo kartaa jilba xanuunka part 1 rheumatismada. Marka qaybtaas waa qaybta rheumatismada iyo ay keento oo videogana ka hadlaya dib ugu laabmaayo. Qaybta labaad waxaan rabaa inaan idinkula wadaago waxa loo yaqaano ACL tear. ACL tear waa maxay? Bloggan aan wax yar dib idinkugu celiyo. Bloggan aan rabo hadda aan maaragtay idinla wadaago ACL tearka. Isaga laftiisa anigaa qoray, Ingiriisi ku qoran yahay. July 1 aan publish gareeyay. ACL tear iyo diagnosiskiisa iyo injurygaas wuxuu ku saabsan yahay ka hadlayaa. Isagii af Soomaali aan videogan hadda ku samaynayaa. qaybtaana rheumatismada lafteeda markaan ka hadlayo iyada lafteeda halkaan aan ku publish gareeyay. Spinacare leeraa website-kan laftiisa anigaa qora, waa Ingiriisi ku qoran yahay. Marka isla socosho wanaagsan. Marka laga hadlayo ACL iyo ligamentska iyo tearkooda markii laga hadlayo waxaa muhiim ah inaan fahanno human anatomy-ga ama jirku sida uu dhisan yahay. Jilibkiisa muxuu ka kooban yahay? Jilibku wuxuu ka kooban yahay 3 lafood uu ka kooban yahay. 3daas lafood oo uu jilibku ka kooban yahay, midda koowaad waa midda kor ka timaado oo maaragtay sidaad videogan ka arkaydo waa midda kor ka timaada oo maaragtay sinta xaggeeda ka timaada oo femur la yiraahdaa middaas. Midda labaad na hoose ka timaada oo tibia ayaa la yiraahdaa iyadana sidaad videogan uga jeedo hoose ka timaada. Shanshadana waa loo yaqaanaa. Shanshada marka qaybtaas hoos ka timaada labay u kala baxdaa. Qayb waa qayb banaanka jirto laf yar oo fibular la yiraahdo sida dhakhtarkan gacantiisa aad ka arkayda laf yar oo fibular la yiraahdo banaanka taalla weeye yiriisa iyo mid weyn oo tibia la yiraahdo. Saddexdaas markay isu yimaadaan ay waxay sameeyaan knee joints ama jointska jilibka loo yaqaan. Marka sidaas markay jointskaas ay isu saaran tahay oo jilibku isu saaran yahay waxaa jira cingiri yar oo ku wareegsan oo diskiya oo ku wareegsanaa jira. Diskigaas oo kala celiya lafaha inaysan istaaban kala ilaaliya waxaa loo yaqaanaa meniscal loo yaqaanaa. Kaas videoga qaybta jilba xanuunka saddexaad aan uga soo hadli doonaa. Meniscal isaguna goonidiisa iyo injurygiisu way ka duwan yihiin ACL-ka iyo kuwan way ka duwan yihiin. Marka wuxuu leeyahay jilibku haddaan wax yar idiin summarize gareeyo aan soo koobo anatomy-ga iyo sida uu dhisan yahay. Waa qaybta lafta kor ka timaada iyo labadan lafood oo gudaha hoos ka yimaada markay isu tagaan waxaa kala celiya cingiri yar oo wareegsan. Okay, cingirigaas waa kala celiya. Shaqada kale oo ay u baahan yihiin marka maxay tahay? Shaqada kale oo ay u baahan yihiin waxa waaye stability u baahan yihiin. Stability u baahan yihiin. Stability-gaas ama inay maaragta uusan wiliq dhihin oo uusan kala dhicin. Si uusan u kala dhicin marka 3 taag macnaha oo 6 taag oo waxaa ku jira oo loo yaqaano ligamentska waxa loo yaqaano af Soomaaliga waa seedo. Ligamentyadaas marka mid waa frontiga ama banaanku iridda hor uu soo xigaa oo halkan wejigan hor uu soo xigaa. Mid kaas ACL la yiraahdo waa midka videogan aan uga hadli rabo. Midna banaanku xigaa oo waxaa la yiraahdaa LCL la yiraahdaa. Midna guduhu soo xigaa oo MCL la yiraahdaa. Midna xagasha xaggeeda iyo uu xigaa banaanka oo dabadda u baxsan yahay kaasna BCL la yiraahdaa. Ayagoo dhanna shaqadoodu waxay tahay stability inaan laftu aysan wiliq dhihin oo aysan kala dhicinayn shaqadoodu ayay tahay. Marka waxaan ka hadlaynaa marka maanta ayaga mid ka mid ah midka ugu maaragta muhiimsan oo ACL la yiraahdaa. Injury-guna inta badan ugu dhaco oo ugu badan yahay injury-gu. Halkan haddaad maaragta sawirkan aad fiiridiin normal ACL markaas gudaha isku duuduuban yihiin oo gudahaasi ku jiraan oo maaragta lixdoodu isku daba mareeyaan. Midkan ningixa sida u wareegsan waa meniscalkii weeye kii kala celinayo hore idinkugu sheegayo weeye. Marka uu dilaacsan yahay haddaad halkan sidaad uga jeedin halkan waa sidaas waa maaragtay ama half uu ka dilaacaa ama full uu dilaacaa ama marka qaar waa injury la yiraahdo waa sprain garaaw waa isku marooqsano caadi uma dilaacsano uma go'no laakiin tearka marka la yiraahdo waa markuu dilaacsan yahay. Marka haddaan ku soo laabano ACL-ku waa maxay sidaas anatomically intaan waxay sharaxaydaa one of the 4 major ligaments that stabilize the knee joints. Waa afarta ugu waaweyn oo maaragtay uu maaragtay stabilize gareeyo mid banaanka mid iridda iyo laba geesaha.
maaragtay macnaha 6 maahan 4 waaye, afartoodaas ugu waaweyn. Marka meniscalka lagu dari maayo, meniscalku maadaama uusan ligamentiyada bannaanka uusan ka mid ahayn. Markii medial iyo lateral meniscal lagu darana 6 ay noqdaan, laakiin hadda waa maaragtay seedahaas bannaanka ahaan maaragtay sharaxaynaa. Mid ka mid ah waa ACL, waxaana waa anatomically aan idiin soo sharaxay meeshuu kasoo bilowday iyo meeshuu ku dhammaaday, si lafahaas u saabsan yihiin. Marka muhiimadiisa weyn, functionkiisa ugu weyn waa maxay? Marka ligamentiga functionkiisa ugu weyn waa maxay? Muxuu qabtaa? Wuxuu qabtaa marka aan ordayno, marka aan soconayno, marka banooni la cayaarayo, marka qofku uu rabo inuu meel ka boodo, laftu dhig ay laftu kala dhihi lahayd. Haddii aan ligamentskaas uusan jiri lahayn, dhig ay kala dhihi lahayd, ama dhinacaana u dhici lahayd ama dhinacaana wilaq u dhihi lahayd. Inta badan injury xataa markuu dhacayo waa mararkaas oo kale oo qofku uu lugtiisa twist gareeyo. Dadka banooniga ciyaaray u badan yihiin oo maaragtay si soo kala wareegaan, iyo markii qof tackle gareeyo oo kale oo ciyaaryahan kale uu ku qabto, markaasuu isku marooqsamaa. Marka functionkooda haddaan maaragtay aan kusoo laabano waa sidaas, waa maintain knee stability during walking, running, changing direction. Waa dadka banooniga ciyaaraya, waxaa changing directionka laga hadlaa, and other daily activity waa sida socodkii iyo istaagnaantii. iyo calaamadaha marka la dareemo maxaa ka mid ah oo ii sheeg? Calaamadaha la dareemo inuu dilaaco maxaa ka mid ah? Jugto kow markay kusoo gaarto, mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad maqasho pop sound, inuu yidhaahdo sharqan yar ka maqasho iyo wax. Waxaa ka mid ah inuu swollen, inuu hore ka bararo haddiiba saacada kadib markii jugtu ay ku gaartay ama aad dhacday ama aad maaragtay xanuunka inaad horeba swollen aad ka dareento. Waxaa ka mid ah inaad istaaggii iyo socodkii iyo ay ku dhibaan, weight bearingki difficulty kugu noqdo. Waxaa ka mid ah in unstable inuu noqdo, hadba give away waxa loo yaqaano, wilq inuu ku dhahayo aadmo adoo xataa iska fiican oo iska socoto mar wilq kuleeyahay isleedahay maxaa jilibkii kaaga dhacay, oo inaad cadaad aad maaragtay ku siganaysaa. Waxaa ka mid ah maaragtay range of motionkii ama dhaqdhaqaaqii inuu yaraado, uu maaragtay laalaabkii lugtii aad si fiican u laalaabi weydo, reduced range of motion aa la yidhahdaa taasna. Diagnosiska marka laga hadlayo history, inuu qofkii maaragtay laga wareysto, uu dhakhtarkii kaa wareysto, oo sheegto wixii kusoo gaaray iyo wixii aad qabayday, iyo maaragtay inta badan waa injury. Waxyaalahan hadda ujeedo ligament test iyo anterior withdrawal test waa waxyaalaha dhakhaatiirtu ay sameeyaan, lugta dhinacyada qaarkood u warwareejiyaan si ay u fiiriyaan inuu stability dhinaca ka jirto. Laakiin the most definitive diagnosiska oo maaragtay lagu kalsoonaan karo 100% waa MRI. Raajadu ma qabato ACL tear. Haddii raaja lagu saaray lagu yiraahdo oo jilibka ku xanuunayo, aad tiraahdo raaja lay soo saaro ma jiro, waxba dilaac ma jiro, maya, raajadu waxa waaye laf jabta iyo dislocation iyo waxyaalahaasay sheegtaa maahane ligamentiga ma qabato, ma sheegto. Treatmentigu wuxuu isaga laftiisa uu ku xiran yahay heerka ama degreega uu gaarsiisan yahay ku xiranta. Hadduu wax yaro minor tear yar meel yar uu yahay, activity modification inaad shaqadii iyo aad yaraydo, banooni haddaa ciyaari jirtay joojido xoogaa, iyo maaragtay kaalmaatiyo pain management iyo physiotherapy rehab iyo waxyaalahaas inaad aado waaye, oo maaragtay conservative care la yiraahdo hadduu yar yahay. Hadday xaaladdu weynto tear weyn iyo full tear uu yahay, waxa waaye orthopedic specialist ya la macaamila. Waxyaalaha ay sameeyaanna waxa waaye reconstruction surgery yaa la yiraahdaa. Marka hanicin haddii lagu yiraahdo waa surgery, macnaheedu waxa waaye waa full tear ama waa full uu ku dhow yahay tear. Waana qayb ka mid ah interventionka ay lagu sameeyo, sii geli mayno grafting wax la yiraahdo ay ku sameeyaan, oo dhakhaatiirta qalliinku ay ku sameeyaan. Qaybtan yar waxaan uga hadla qaabka looga hortagi karo. Si guud waa inuu qofku maaragtay ay maaragtay lugihiisu xoog leeyihiin, inuu qofku oo strengthening exercise uu caadiyan sameeyo, oo maaragtay iyo inuu weightkiisa iyo control oo maaragtay qofku asagoo culus oo weightkiisu aad u culus yahay hadduu ama ordo ama uu meel ka soo boodo ama uu si xoog leh u kala wareego, waxaa laga yaabaa inay maaragtay ay uu hore injury uu ka gaaro, oo sidii rheumatismada aan uga soo hadlaynaba weightka qofka culus uu waxyaalaha sahli kara ka mid tahay inuu tear ku gaaro, oo riskiga ay ka mid tahay. Inactivity-ga inuusan qofku isagoon activity badan lahayn oo maaragtay qof iska fadhi jirin hal maalin iska yiraahdo banooniyan ciyaara ama waa ordah oo kale, waxyaalaha sahli kara ay ka mid tahay. Marka videogu marka halkaasaan kusoo gabagabeynayaa. ACL tearku macnaha wuxuu ka mid yahay, waa ACL-ku wuxuu ka mid yahay qaybaha muhiimka ah oo jilibka stability-giisa iyo inuusan dhicin ilaaliya. Injury-ga soo gaarana wuxuu keenaa xanuun, uu keenaa instability, uu keenaa inuu weight bearingkii iyo socodkii iyo dhaqdhaqaaqii iyo qofka ay ku yaraadaan uu keenaa, oo calaamadaha lagu garto barar uu keenaa. Keerkiisana iyo daawadiisuna waxay ku xiran tahay heerka uu gaarsiisan yahay, oo maaragtay injury-gu heerka uu gaarsiisan yahay, ma full tear ama minor sprain ama minor tear uu ku xiran yahay.
definitive diagnosiska ugu dambeeya oo lagu xaqiijiyahuna waa MRI. Marka haddii aad isaga shakisan tahay oo jilibku ku xanuunayo oo give away welk uu ku leeyahay oo waxyaalahaas aad dareemaydo waa hore, ama aad jug kaa gaartay, ama aad banooni kula sidbaxday, ama aad meel kasoo kula sidbatood dhacday, aad ka shakisan tahay oo aadan weligaa MRI samayn, MRI ku samee. MRI-gaa sheegtay inuu teerkaas yahay. Haddii uu MRI-gaas full teerkaas soo sheegto surgery laguu soo jeediyana ha ka nixin. Waa waxyaalaha kamid a waxyaalaha lagu daweeyo qayb kamida waaye oo medical intervention-keeda. Marka videoga halkaasaan kusoo gabagabeynayaa ACL tear. Halkaasaan videoga kusoo gabagabeynayaa. Sidoo kale halkaan Dr. Xaashi Network dadka aan la socon, halkaan videoyada aan si axla ugu soo gudbiyaa. Waxaan uga soo hadlay video badan, aan uga soo hadlay xanuunka, uga soo hadlay plantar fasciitis xagahoo qofka gubanaya, xogta korkeeda mortis neuroma aan ka soo hadlay. Waxaan kaloo ka soo hadlay Achilles tendon fascia, xididka fascia oo injury uu qofka ka gaaro. Waxyaalahaas oo dhan aan ka soo hadlay. Waxaan ka soo hadlay lafa xanuunka guud iyo noocyada ay u kala baxaan. Way badan yihiin. Waxaan ka soo hadlay sciatica wax loo yaqaano iyo dhabar xanuunka. Marka videoga halkaasaan kusoo gabagabeynayaa. Halkaa channelkaas aad kala socoydin wixii video yaala si joogto ah axad walbana u soo daayaa. Qaybtan waa qaybtii labaad oo jilba xanuunka. Haddaan marka laydin dul maro, qaybta saddexaad waxaan uga soo hadli doonaa cingariga wareegsan oo oo u dhexeeya oo jilibka lafaha saddexdaas lafood oo aan hore usoo aragnay kala celiya. Cingarigaas gudaha ku jira oo kala celiya meesha dhakhtarku farta ku fiiqahay. Qaybta saddexaad uga soo hadli doona meniscal injury waxa loo yaqaano. Marka isla socosho wanaagsan. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum. Videoga isla sii share gareeya, comment ka bixiya, like-ta iyo comment-iga ugu dadaala. Feedback-giina waa muhiim. Waa akhriyaa comment-yadiina. Salaamu calaykum.